السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وادي السلام دماتنا ملك سو ادوك هكا جوجتان فضلا هدي تهملك ugu horeysan soo booqatay fadlan subscribe sar siina share kare sa asxaabtaada la wadaag video waxaan ka hadli doonaa nervous systemka waxa loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah central nervous system oo ka kooban isagu brain iyo spinal cord waa meesha dhammaan information iyo signalka la keeno waana meesha informationka iyo signalka laga soo diro sidoo kale waa meesha lagu kaydiyo dhammaan informationka qaybta kale oo ah peripheral nervous system sidoo kale aad ay muhiim u tahay sida central nervous systemka sababtoo ah peripheral nervous systemka xaqiiqdii waxay geeyaan informationka iyo signalka central nervous systemka sidoo kale waxay qaadaan informationka iyo signalka iyaga oo ka soo qaadaya central nervous systemka peripheral nervous systemka waxay u qaybsamaan laba qaybood mid waxa uu keena informationka central nervous systemka midna waxay ka qaadaan informationka central nervous systemka sida awgeed peripheral nervous systemka waxa uu ka kooban yahay sensory or afferent diffusion and motor or efferent diffusion way wanaagsan tahay in la dhaho qaybsanka peripheral nervous systemka sensory diffusion and motor diffusions waan arkaynaa sababta aan ku hormarno sensory diffusions of the peripheral nerves oo ah afferent diffusion qaybta sensorygu waa qayb dareen wada ah sida araga urta taabashada iyo waliba painka for example waxyaabahaas oo dhan ay iyadu dareen wada u tahay qaybta sensory dareenka ay soo qaada iyadu for example qaybta sensorygu basically waa qayb informationka geesa central nervous systemka informationka oo mara sensory neuronka qaybta afferency ee peripheral nervous systemka basically waxaan xagan ku haysanaa sensory neuron for example waxay qaadaan informationka ila central nervous systemka spinal cordka waan arkaynaa markay signalka soo qaadaan waxa laga yaabaa in signalkaas uu ka imiday our visions aragtideena wuxuu noqon karaa dareen taabasho leh wuxuu noqon karaa wax inuu ku xanuuniyo ama xanuun aad dareento laakiin basically sensory neuronsku wuxuu wadaa information uu geenayo central nervous systemka spinal cordka example ahaan informationka waxa uu taaban doonaa ilaa brainka si loo process gareeyo ama loo turjumo si loo eego si sax ah loogana falceliyo haddaba falcelinta la sameynayo waxa la shaqeyn doonaa ama ka shaqeyn doonaa qaybta motorka oo efferent diffusionska ee peripheral nervous systemka qaybta motorku waxa uu qaadaa informationka iyo signalka ka imaanaya central nervous systemka ee brain and spinal cordka then waxa la geeyaa target cellska isaga oo signalkaasi uu marayo efferent neuronska signalka waxa uu ka imaanaya central nervous systemka ilaa target cellska waxa uu noqon karaa voluntary means waxaan control karno yani wuxuu noqon karaa waxaan ka warhayno sidoo u dhacayo conscious control it can be involuntary waxaan ka warhayn without our control ka baxsan for example involuntary response waxyaabaha involuntary response kamida sida our heart because ma control kan garaac wadnaheena oo marka aan rabno mana joojin karno sababtoo ah waxa jira voluntary and involuntary efferent neurons sidoo kale waxa si qaybsama qaybta motorka ee peripheral isaga oo u qaybsama somatic nervous system and the autonomic nervous system oo qaybsama the somatic nervous system waxay control voluntary movement and the autonomic nervous system waxay control involuntary responses kay control an egno somatic nervous system example of somatic nervous system informationka ama signalka ka imaanaya central nervous systemka ka soo mara efferent neuronska ila skeletal muscle cells si uu movement u sameeyo skeletal muscle cellsku waa target cells waa qaybta somatic nervous systemka sababtoo ah waqti aan ka warhayno ama aan ka warqabno oo rabitaankeena ayaan ku dhaqaajinaa gacmaheena iyo lugaheena sidoo kale autonomic nervous system isagu
wuxuu controlaa influental response-ga waxaa jira xogaa confusion aad ku wareeri doonto insha allah. The autonomic nervous system-ka waxaa loo qeybiyaa laba qeybood oo kala ah qeyb sympathetic ah iyo qeyb parasympathetic ah. labada qeyboodba sympathetic and parasympathetic uu ka duwan yahay midba kale. For example, qeybta sympathetic waxay aad u shaqeysaa during exercise such during sport. waa sababta qeybta sympathetic uu u shaqeeyo waqtiga fight or flight response-ga. And the parasympathetic deficiencies were less activity during exercise. Less activity during exercise. labada qeyboodba ee autonomic nervous system waxay qaadaan informationka iyaga oo kasoo qaada steroid ilaa target cellska si influentra. haddaba for example informationka ayaa loo dira heart conduct systemka isagoo u qaadaya efferent neurons, and this is autonomic nervous system. The sympathetic deficiencies marka loo soo diro waxay qaadaan signalka ka imanaya steroid ilaa target cellska kaasoo ah heartigi wadnaha si uu kor ugu qaado heart rate-ga garaaca wadnaha. sababtoo ah markasta waa in kor loo qaadaa garaaca wadnaha during exercise, right? The parasympathetic deficiencies sida saxda ah waa ka soo horjeedka sympathetic deficiencies-ka. wuxuu ka falceliyaa isagu waqtiga resting-ka ama cuntada, so wuxuu hoos u dhigaa heart rate-iska. qeybta parasympathetic sida saxda ah wuxuu more active yahay waqtiga resting-ka marka aan wax cunayno, for example oo kaleeto. maxaa loo baahan yahay haddaba inaan fahno sympathetic and parasympathetic response keliya ma target gareeyaan heartiga, waxay target gareeyaan other organs. For example, it can target the gills because target gareynaya mindhiciraha and the salivary glands. For example, both have opposite response to each other. labadu waxay shaqeeyaan si opposite ah oo ah midka kale ka soo jeekan. hadduu kor u qaado heartigi ka kala hoos buu dhigaa. midna wuxuu shaqeeyaa waqtiga exercise-ka, midna wuxuu shaqeeyaa waqtiga rest-ga. waxaa xagga inoogu soo dhamaaday qeybihii nervous system-ka. haddii aan recap sameyno waxaa soo baranay nervous system inuu qaybso labo: central nervous system, peripheral nervous system. Central nervous system oo ka kooban brain and spinal cord. Peripheral nervous system oo ka kooban isagu sensory and afferent or motor or efferent neuron. motorka ayaa isagu labo sii qaybsama sympathetic and parasympathetic. sympathetic and autonomic sii qaybsama. then autonomic ayaa isagu wuxuu sii qaybsama labo: sympathetic and parasympathetic buu qaybsama. mid faqiya goorta fight or flight-ka iyo mid qaybta resting-ka shaqeeya. markaan soo summarize karaan insha allah waxaan rajeynaynaa videoga xiga intaan ku kulmi doono inaan idin rajeeyo caafimaad iyo cimri dheer. fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato fadlan subscribe, share, asxaabtaadana la wadaag fadlan please.